kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada qaybtii labaad warbixinaan kaga hadli doono fariyaasha guusha. warbixinada oo joogto ah waxaad kula socon doontaan Gurmud Media subax walba xilligan oo kale. haddii aad nagu cusub tahay fadlan daawade subscribe channelkan si aad u hesho qaybaha kale warbixinada. maanta waxaan uga hadlaynaa qaybteena labaad astaamaha guul lagu gaaro. dadka guuleysta waxay leeyihiin astaamo ama dhaqamo aad u fara badan. dhaqamadaas ayaa u horseeda inay naftooda horumar gaarsiiyaan kadibna caalamka wax ku soo kordhiyaan. haddaba waxaan soo qaadanaynaa astaamahaas kuwooda ugu waaweyn. astaamahan adiga naftaada ku dabaq si aad horumar la taaban karo u gaarto. waxaana ka mid ah 1. kalsooni waxa weeyaan inaad u aragto naftaada mid wax soo saari karto ama wax soo kordhin karto, guulna gaari karto. naftaada markaad ku kalsoonaato ayaad hiigsan kartaa waxaad rabto. waana furaha ugu muhiimsan ee guusha lagu gaaro. hal fure oo muhiim u ah guusha waa kalsoonida. hal fure oo muhiim u ah kalsooniduna waa diyaar garowga. kalsoonidu waxay ku siinaysaa awood aad hor ku qabato, taasina waxay ku horseedi kartaa inaad si dhab yar aad u guuleysato. kalsoonidaas oo ku horseeda horumar weyn, taasi ayaa kaa dhigaysa ruux ku habboon xaqiijinta hadafkiisa. naftaada oo aad ku kalsoonaato waxay kaa dhigaysaa mid wax walba qaban kara. haddii aad naftaada kalsooni siisid waxaad jiidi kartaa ku dhowaad wax walba. naftaada waqti walba ku kalsoonow. sidoo kale dadka ku kalsoonow. inaad dadka ku kalsoonaato waa shay loo baahan yahay, maxaa yeelay haddaadan dadka ku kalsoonaan naftaadana kuma kalsoonaan doontid. iskana ilaali gebi ahaanba ereyga ah kalsooni darro. sheeko xigmad leh baa dhehaysa aabba ayaa gabadhiisa oo yar waxa uu waday dalxiis si ay u soo daawato beeraha, xayawaanada iyo webiyada. iyagoo dul socda buundo ama bariij ku dul yaalla webiga dushiisa ayay gabadhii aabaheed ku yiri, aabba gacantay qabso sidaadan uga dhicin webiga. gabadhii yareed oo ahayd gabar ilaahay xigmad weyn siiyey ayaa waxay ugu jawaabtay aabaheed, adigu iqabo, maxaa yeelay laga yaabay inaan kaa siibto haddaan aniga ku qabsado, laakiin kaama siibanayo haddaad adiga iqabato gacanta. inaad naftaada ku kalsoonaato oo aadan cidna la barbar dhigin waa jidka guusha. ha ka dayrin weligaa. 2. aqoon noloshaada la diris tahay. ha u doodin ebidka mid kaloo ku dayasho ah. abwaan maxamuud tukaale cismaan ayaa yidhi aqoontu waa furaha guusha, waana mid ka mid ah astaamaha lagu gaaro guusha. aqoontu waa iftiinka nolosha, waana miisaanka uu qofku ugu kala soocayo guusha iyo guuldarrada, saamaanta iyo xumaanta. aqoon la-aan waa iftiin la-aan. aqoontu waa anshax, waa edeb, waa anfac, waana shayga ugu qaalisan uu qof hanti ahaan u leeyahay. waana shayga kuu sahlayo inaad gaartid himiladaada. tusaale, haddaad tiraahdo waxaan doonayaa inaan noqdo wariye oo aadan baran cilmiga saxaafadda, waad guul daraysanaysaa. inaad noqoto wariye fiican si aad guul uga gaarto mihnada waa inaad marka hore barataa cilmiga saxaafadda. raadinta aqoontuna waa sir ka mid ah siraha guusha lagu gaaro. 3. dhaqan wanaag. haddaad rabto inaad guuleysato waa inaad dadka si fiican ula dhaqantaa, kana fogaad in dadku kula dhaqanto dhaqan xunxun. dhaqanka wanaagsani wuxuu kaa dhigayaa mid bulshada ku dhex nool yahay, ixtiraamaan, noloshiisana ku guuleysta. anshaxu waa buundada u dhexaysa yoolka iyo guusha. 4. iskaashi. wada shaqaynta waxay yaraysaa hawsha waxayna badisaa guusha. bulsho waxay horumar ku gaaraan iyadoo dadkeedu iskaashato oo isku kalsoonaadaan. iskaashigana waxuu horseedaa midnimo iyo wadajir. meesha midnimo taallo guuli waa taal, maxaa yeelay iskaashato horaa loo yeerma kafto. markaad rabto inaad howl guud gaarto waxaa fiican in dadka la kaashato oo aadan keligaa isku gaaryeelin, maxaa yeelay far keliya fool ma dhaqdo. haddaad dadka la kaashato hawshaada waxaad faa'iidi doontaa in hawshaada si dhab yar u qabatid, iyo in waqtiga oo halbeegka nolosha qofka uu ku noqdo mid aadan ka qoomameen. ma qabsan karno waxyaalaha aynu rabno annagoo wada jirna mooye. 5. daacadnimadu waa tilmaan ka mid ah tilmaamaha ay leeyihiin dadka guuleystay. waxay daacaddu u yihiin naftooda, dadkooda iyo dalkooda. ma qiyaamaan dadkooda, maxaa yeelay waxay ogsoon yihiin in khiyaanadu ay ku soo dul noqon karto qaa'inka laftiisa, qaa'inkuna uusan liibaanin. sheeko xigmad leh baa dhehaysa
ninbaa yidhi warniyow khiyaanada ibar. markaasayuu ninkii caqliga badnaa ku yidhi waayahay horta hashaada iisoo lis. markuu usoo lisay ayuu yidhi haddaba waa anigan kuu soo lisay khiyaanada ibar. markaasuu ninkii caqliga badnaa yidhi waa aniga ku baray. 6 uroonaanta dadka, sheeko xigmad leh, waxtarka dadka. Gaandhi ayaa hadda ka hor raacay tareen. markuu lugta hore la helay ayuu tareenkii dhaqaaqay, kadibna mid kamid a kabihiisii ayaa dhulka uga dhacday. mana fududeyn inuu kabta soo qabsado ileen tareenkii joogsi maba lahani. Gaandhi wuxuu durbadiiba ku dhaqaaqay inuu kabtii kalena ku tuuro halkii ay tii hore ku dhacday. dadkii tareenka saarnaa oo aad ula yaabay falkaas una haystaan Gaandhi inuu caqli darro sidaasi u sameeyey ayay weydiiyeen waxa kabtiisa oo ka dhacday ku kalifay intii kalena haddaba tuuro sidaasna kabo ugu beelo. si sahlan buu ugu jawaabay kabtii hore sooma cisho karo oo ma awoodo, waxaanse awoodaa in ninka maskiinka ahi kabtaasi heli doona aan ku caawiyo inuu tan labaadna la helo oo sidaasi 2 kabood oo ku socosho iyo labis ah uu u helo. 7 isxilqaan waa inaad wax kasta oo kugu waajibiyey inaad ka soo baxdo duruuf kasta oo ku jirta ayna ka hor joogsan caqabad kasta ama dhib kasta oo ka hor timaada aanad u joojin dibna aanad u noqonin ilaa guushaada aad taabato.